السلام عليكم ورحمة الله كل أنا وناسن داود الحرجة أنا فهمتي أنت كدب ملا سocota in caadadu ama ciddada ama meertada nolosha ee isbeddelka dumarka inaysan ku dhicin oo kaliya dumarka ee ragguna ku dhacdo inta badan waxaan naqaanaa oo daraasado fara badan laga qoray dumarku inay caado ku dhacdo waxaana daliil u ah oo si caadi loo arki karaa maadaama dhiig bax ku yimaado dumarku la arki kara astaamahaas kadib ay qasab noqotay in dadku aqoon-yahanada wax ka qoraan daraasado ka qoraan oo wax badan laga tiraasay oo la tijaabiyo oo baaris lagu sameeyo emotionally dareen ahaan hormoon ahaan bal maxaa iska bedeli kara sidoo kale ay ku qasbanaadeen laakiin barniyo u soo ooy ragga bal ka war haddaan ku dhaho ragguna isbeddel saasoo kale ku dhaco runtii dhiig bax ma ku yimaado oo lama arki karo laakiin meertadaas isbeddelkaas cyclekaas ku lamid ah weliba ka badan oo soo noqnoqdo ayaa ku dhaco si aad u fahamta marka mawduucan 5 waxyaabood ayaan insha Allah taala ku soo bandhigi doonaa 5tan shay fahanto dabciga ragga oo dhan waad fahmaysaa iyo isbeddelada muuqda ee ku dhici kara marka ila soo inta kadib tan koobaad raggu waxay leeyihiin mid maalinle ah ciddadooda ama caadadooda ama dhiigooda ama saa u taqaanaba markaasi meertada markaasi cycleka periodka ay ragga maraan waa mid maalinle ah maalin walba wax ku dhaca waay ma aha wax oo la xiriira macnaha wax bilbil u yimaada maaha inta badan waxaan naqaanaa oo caadi ah si aad u fahamto mawduuca subax waaga markuu baryo ninka ama wiilka waxaa arkaysaa inuu active yahay laga bilaabo 7 ilaa 9 subaxnimo waxa laga yaabaa waaga markuu ku baryo inaad aragto xubinkaga tarankoo taagan inaad aragto inaad macnaha active tahay inaad ilaa ku sameeydo xoog leedahay inaad arkayso oo aad markaasi firfircoon tahay sababta ma taqaanaa waxaa jira maada la dhaho unug la dhaho oo jirka ragga ku jiro oo testosterone la dhaho testosteronekaas ayaa big ah oo kor jira taasoo keenaysa inaad active ahaato marka aad saacadii joogto ama 2 saac kadib ama 9ka markii la dhaafo kadib 11 12 wuu si yaraadaa wuu si dhacaa boqolkiiba aan ku soo qaadno tusaale inuu ahay markaad joogto tusaale ahaan habeenkii oo kale maqribada 6da maqrib markaad joogto oo kale down waxa iska joogaa boqolkiiba 40 oo kale 2 saac 3 saac habeenimo marka la gaaro waa zero si noqdo hoos buu sii aadaa marka si aad marka u fahanto raggu subaxi waaga markuu baryana dabcigooda waa gaar habeenkina waa si kale la soco tan labaad number 2 aan ka dhigi doono waxa waaye qaabka stresska u saameeya ragga ma la mid ahan sida uu dumarka u saameeyo soo ugu dhaca dumarku wuxuu ugu dhacaa stress ahaan emotionally hadaa rabto gabar ama qof dumara oo ku dhacay stress hadaa rabto inaad daaweyso ama aad daryeesho emotionally ayaad soo kabi kartaa oo aad markaas problemkeeda ka taxraaci kartaa laakiin raggu sidaas ma markuu qof ama nin rag uu ku dhaco waxa loo yaqaano stresska ugama dhaco emotionally wuxuu ka soo bilowdaa hormoon ahaan ugu dhaca taasoo keeni karta marka inuu markaasi gudihiisa saameyn ku yeesho inta badan raggu gudahay ka gubtaan gudahay ka dhaawacmaan banaanka ma dhaawacmaan inta badan maadaama raggu dhaqanka Soomaalida guud ahaan ama gaar ahaan adduunka oo dhanba guud ahaan aan dhahnaba aan dhihinba Soomaalida kaligeed caalamka oo dhan waxa u diiwaan gashan raggu inay is adkeeyaan oo rag noqdaan adag yihiin ba adduunka u diiwaan gashay sidaa daraadeed waxay iska ilaaliyaan in markaas la arka dhaawacooda sidaa daraadeed dhaawac ahaan waxay u dhaawacmaan gudaha daakhiliyada ay ka dhaawacmaan marka hadaa rabta marka inaad fahamto ogaaw raggu inuu dhaawacmaan si daakhiliye ah oo isan markaasi u dhaawacmin si markaasi banaan ah uma dhaawacmaan waxaa jiro testosterone ragnimada waxaan ku sheegnay unuga ragnimada testosterone baa la dhahaa mid kale waxaa jira ka soo horjeedo oo hormoonka stress kala dhaho cortisol ayaa la dhahaa cortisolkaas marka wuxuu sameeyaa عكس يكويه هرمونك كلا ديلا يكون سميدي إذا نلده تستوستيرون هدي مركا أو كان سرمرة مت هدو سرمرة كان كلا أيو مركا هو صدق كوكينا تصالحان هدي التستوستيرون كورو قادو أو أجمع سمايسو أو أدنيد الدجسو أو أتحلي في عن صحته أو الحالة هذا كبر قبته أو أنت في عنته أو نظامك هذا بدل كوسمايسو أو النيد في عناته وستريس كسكير لازم هذا عاية التستوستيرون كورو قاعد تاس عكس كده هدي أتبديسو وحليت كوا ديلا يكون سميدي التستوستيرون كاجا مركا هو صدق سمينا وحكر اللي كعدونا هرمونك ستريس kaasoo khatar ku ah markaas inuu baabiyo hadii ay ku sameeyeen jirkaaga intiisa kale natiijada maxay noqotaa marka hadii marka unuga stresska haduu markaas hormoonka stresska haduu kordho maxaa dhici doona marka waxaad dareemi doontaa tabar yari guud hadii qofka isku aragto waxa weyn doontaa wax ku farxad geliyo hadii ay ku sameeyeen waxaad iska jeclaanaysaa inaad kaliga iska noqoto kaliga iska noolaato heer xaaskaaga ama gabadha markaasi kula nool ay kugu wareerto
isla ninkan ma ku nacay manaa xiisahaaga miyaa ka lumay isdhahdo. qodobka saddexaad waxaa waaye inay tahay in lagu baraarugsanaado si loo diraaseeyo dabciga ragga. waxaa waaye waxay leeyihiin periodkooda wuu ka gaaban yahay kan dumarka, periodka wuu ka gaaban yahay. si kale inta badanna lama fahmo haddaan si kale u dhahno, wuu gaaban yahay, wuu ka yaryahay, waqti yar u qaataa, uuna ka markaas dili ku samidin uuna markaas lamana fahmo, waqti yar u qaataa lamana fahmo, dhaqso ku baxaa. inta badan periodka bil kasta ayuu mar ku dhaca dumarka oo caadi waa iska fahmnaa, isbedbedelka ku dhaco dumarka waa la fahmi karaa. laakiin ragga tooda waxay qaadataa 3 ilaa 4 maalin kasta uu soo kordhaa, isbedelkaas uu yimaadaa 3 beri ama 4 beri kadib waxaa ku arkaysaa isbedel hormoon ayaa ku dhaco ragga, bil ma sugo. waxyaabaha marka burburiya cyclekaas oo jajabiya oo ka qasa waxaa ka mid ah 1 hurdo la'aanta. haddii cyclekaas lagu jiro waxaa la rabaa inuu xooga saartid oo cyclekaas ku jirtid, waxaa la rabaa inaad xooga saartid, inaad hurdid, waqti fiican aad qaadatid, inaad iska ilaaliso buuqa iyo qaylada iyo rabshada, meelaha khilaafka. markuu xaaladan ku jiro qofka kalsoonida ayaa ka dhunto, wuu iska aamusaa oo kale. qaladka ugu weyn ee aad samayn karta marka muxuu yahay? marka qaladka ugu weyn gabadhaha ee aad samayn karto, ninkaaga aad samayn karto waxaa ka mid ah markuu meertada cyclekaas ku jiro inaad markaasi la doodo. inta badan dumarka waxaa lagu yaqaanaa markii ay xanuun dareemaan waxay rabaan inay hadlaan, inay gar ay dhigtaan, ay doodaan, ay dacwoodaan, bedelka uu ninkan xaalad kale ku jiro. marka ha ka hortagin cyclekiisan, ha ka jibinin, ka leexo ilaa uu ka dhamaysto cyclekaas. markaas kadib la dood. sida aan soo sheegnay, isla hadalkan hadda aan soo sheegan qodobka 4 ka dhigaynaa, ragga iyo dumarka waxay ku kala duwan yihiin. gabdhaha hadday qabato duruuf ama xanuun hadduu qabto, tusaale ahaan waxay jecel inay la hadlaan dadku, inay garbaxaan, inay doodaan, inay murmaan. marka nimankan sidaa ma aha. systemka neerfaha ninkan ayaa dib isu saxaya oo isbedel ku sameynaya, maadaama cycle ku jiro xaaladiisa way isbedeshay. marka ma diyaar uma aha inuu kula garamo. marka hala doodin, hala murmin. haddaa aragto inuu su'aalka kaga jawaabaynin, inuu iska aamusan yahay, inuusan wax jeclaanaynin, inuu niyad jabsan yahay, shibka dhe, waxba ha ka laynin, ha taabanin, ha caawinin, garab ha ku siinin, faraha hala gelin, ka leexo. isaga isaxaya, isaga istuusinayo. qofka aad la doodayso waa qof ebere oo formaat garaysan oo dib isu saxaya, systemka computerkiisa dib isu saxaya. adina waxaa leedahay maxaa kugu dhacay, intee ka timid, maxaasaan u tahay, ma in nacday iyo balaaya isaga mashquulsan tahay. no way, waxaas looma jooga walaalay. ninkan ka leexo, xag ka mar ilaa uu markaas dib isu saxaya. taleefon faaruq ah ama computer window oo keliya uu ku duuban yahay ayaa ku hortaagan, markaasaa rabtaa inaad isticmaasho office ka dhex raadinaysaa. office maba ku jire, kadaa ninkan ha nasto, niyadda ha u degtee. marka balaayo dhan waxay bilaabataa dhibaato dhan. marka qodobka 5 waxaan ka dhigaynaa dhibaato dhan waxay timaadaa markii la iska indhatiro cycleka meertada nolosha ay maraan ragga. hadday dhacdo ninkaas inuu kasoo kabsan waayo wixii dhacay oo isbedel ahaa oo dhan, oo maalan hadduu dhafro, jimicsi samayn waayo oo kale, cadaadis uu dareemo dhanka shaqada ama meelo kale, khalaas wax walba way dhamaadeen. sidaas ayuuna cyclekii dhamaa ee uu kusoo socday uu ku burburi karaa, saasuu ku jajabi karaa ibir. maxaa dhici kara marka? 1 inuu hal mar kugu qarxa dhici karto. maalin walba ku qaylisaa, ninkaan cycle uu ku jiraa, iska ilaali. hal maraa laga yaabaa sida miinada hal mar inuu kugu qarxo, iska ilaali ninkaas, ha u dhawaanin, ha la hadlin, faraha la gelin, shibka dhe. lambar 2 waxaa dhici karto inuu depression ku dhaco, inuu iska kaa celiyo adiga usan kugu qarxin, laakiin inuu kugu qarxa khayran depression ku dhici karo. waxaa kaloo dhici karto qodobka 3 hamiga sariirta oo yaraado hadduu qarxo. arrintaas mushkilo waa, dad badan laga yaabaa inay ka caawdaan inay xoogaa dareenkooda hamiga muxuu ahay sariirta inuu aad ugu yaryahay. wax kale maaha, waa cyclekooda aysan fahmin waay. hamiga yarida sariirta waxaa keena cyclekaaga ayaa mar walba jaba oo burbura, iska ilaali. waxaa dhici karto qodobka 4 hadduu ninkaaga oo kale maalan aad ku jeclaa inuu ku naco, gabadhii uu jeclaa oo xaaskiisa iyadoo la noolaa inuu naco iyo dhanba uu ka quusto, go-aan ka gaaro. maxaa niyad ahaan adiga maba ku hayaba. ma aha daciiftinimo uu raggu leeyahay, waa biological wax ilaahay uu ku abuuri waayo. marka adigana haddaa reexreexdo aad meel xun geyn karto. marka iska ilaali meertada noloshan uu maro iyo heerarkan isgediska uu markaasi ku nool yahay, ha ka jajabinin, ka leexo. marka insha Allah intaasaan kusoo koobaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.